دكتور شيخ سعيد محمد فارح oo maanta khudbadii jimcaha ee masjidka Umar bin Uthman ee magaalada Hargeysa ka jeedinayay waxa uu kaga hadlay dhibaatooyinka ay leedahay ishu taasi oo sheegay in uu kala baxdo laba qaybood oo kala ah mid ka timaada insiga iyo waliba mid ka timaada jinka Sheikh Sa'id Maxamed Farax oo isagu arimahani ka hadlay waxa kamid ah hadaladiisii taa waxa soo hoos galaysa waxa isha loo yaqaano oo musiibo cadiima ah arin jiraysan ilaa maalinta qiyaamaha oo nabigu yiri salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi ishu waa xaq buu nabigu salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi adii isha wax ka hor degdegi lahaa walaw kaana shay'un saabiq alqadr adii qadarkan ilaahay uu qoray uu wax ka hor dhici lahaa ama wax ka hor degdegi lahaa isha ka hor degdegi lahayd wa idha istughsiltum faghsilu adii qof ileeyo oo uu baahdo inuu weysaysto ha uu weysaysto buu nabigu yiri salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi ishu walaalayaal waa laba nooc waa il shin ka timaada iyo il ka timaada insiga oo labaduba ay dhibaato leeyihiin xadiis Salama radiyallahu ta'ala anha gabar jaariyada u shaqeynaysay ayuu nabigu soo galay salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi marka calaamad buu wajigeeda dharbaaxo oo kale buu ku arkay wuxuu yiri gabadhan ma aragtay hal quraan ku akhriya istarqu laha nadra ayaa ku dhacday waxa jimba soo eegay buu nabigu alayhi salaatu wa salaam jimba soo eegay استرقاء الله سميه رقيها الله أخريه أيها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وكل شيء النبي صلوات الله وسلامه عليه حديث كيف بزار سوري سند كيسون حسن كاها حديث جابر رضي الله تعالى عنه وفي النبي ومد إذا أنت أوجب بضني مركز لقي ما قضاء إلهي سبحانه وتعالى أي قدر كيسة إيش شوية وحقوه إلى ومد إذا يكون dhimanaysa ama ay adduunyada kaga tagaysaa kaga anbabaxaysa marka laga yimaado waxyaalaha la qoray ma aragtay lawxul mahfuudka ku qoran waxa weeyaa waa isha buu nabigu kaleey salaatu wasalaam arin sahlan marka taasi maaha arin sahlan maaha waxa weeyaan arintaasi waxay soo hoos galaysaa nolosha oo dhan marbaadi dhimashada isha lagu dhimanayo ay badatay waxa weeyaa wax waloo la eegaba waxa dhici karaysa dhimashadaas inay sabab noqoto sidee isha looga badbaadayaa waxyaalaha isha laga badbaadiyo waa dhikriga ilaahay ishi waxa weeyaan waxa inta badan sida culimadu sheegto isha wax weyn qofka ishu ay ka soo baxdo shaydaan ama shaydaan sharaadinta kamid ah daba socda oo caawinaya ishaasi qofka inay gasho marka wax weeyaan markiiba meeshii shaydaan yimid dhikriga ilaahay baa laga hortagaya quraankii baa laga hortagaya adkaartii baa laga hortagaya ducooyinkii baa laga hortagaya kuwa fajrka la akhriyo kuwa maghribka la akhriyo waysa laga hortagaya ma sha Allah tabarakallahu qofku barto إلهي فلق إلهي مهدي ما شاء الله الله كبرك يا الله كزياديه وإلهي سبحانه وتعالى مر بالنعم كمرك الله أركل حصيه أيها لك قبل باذية والله يسكغ إلى علينا ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما يسكغ إلى علينا يا دعوين فربضان يا أذكار فربضان كتبت سنها لقيه ليه أيها قفك بلادك يتهين وأخرسته عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال تي في حرقيسة